heli maayo cadaalad ama qarannimo Soomaaliyeed inta annagu aanu isugu faanayno qabaliya iyo qabyaalad iskugu faanayno. la heli maayo barwaaqa sooran Soomaaliyeed inta aan annagu xildhibaanadeena iyo siyaasiyiinteena iyo madaxdanada qaarka kamida ay leeyihiin kursigan waxaan ugu fadhiyaa cidayda, tolkayga, qabiilkayga, beeshayda, jufo hoosaadaydan ugu fadhiyaa uu leeyahay. sidee lagu heli karaa Soomaali israacsan oo qabyaalad ka tagtay hadiiba ninkii mas'uulka ahaa oo leeyahay kursigan iyo shaarkan waa shaarka qabiilkayga, haddii uu ahaado shaarka shaar dawladeed aniga ayaa qabiil ku imaaday oo qabiilan ku matala halkan. sideen ku helaynaa Soomaali? maalin dhaxda waxaan arkayay gabar Soomaaliyeed oo Mareykanka xilka qabatay oo la leeyahay laba cida isu haysato. waxyaabaha la yaab kale laba cida isku haysato oo waxay leeyihiin gabadhaas Mareykanka xilka ka qabatay waa gabadhanada annaga dhalnay. cid kalena waxay leeyihiin maya idinka ma dhaline gabadha gabar heblaaye hebelaa la yiraahdaa annaga dhalnay. maxaa loo kala ordayaa? ma ahan gabar Soomaaliyeed ayaa Mareykanka xil ka qabatay, ma ahan wax loo ordayo marka aan fasirno. waxay tahay gabar beeshaas iyo beeshaas kamid ah oo Mareykanka xil ka qabatay. hadhow bay kuwa wax magaratada ah ayaga ka soo jeedo qaarkood ay dhihi doonaan marka gabadheena oo laandheerad ah ayaa Mareykanka xil ka hayso. laandheerayaal baynu nahay. qabiilka iyo qabyaaladu halka ay gaareen waxaan arkaynay sanadkii hore wiil Soomaaliyeed muwaadin ah, laacib ah, ciyaartooy Soomaaliyeed ee xulka qaranka kamid ah 17 jiradii ayaa dhaliyay gool, Soomaaliyana gool u keenay. markaaba waxa la yiri wiilku wuxuu ahaa beel hebel shareer wax bay ku tilmaameen. hadda waxaaba la sheegayaa xilligii dambe waa laga reebay tartanka oo haddana waa lagu soo daray markii qaylo iyo isdhaamsi meedii oo bacay kadib waa lagu soo daray baa la leeyahay. Soomaaliya in ay Kenya 4 gool iyo eber ama 4 gool iyo hal ay kaga badiso wax caalamka hore u soo maray maahan. waligeedna in Afrika markii la joogo Kenya weligeed Soomaaliya kagama guuleysanin. hadday ahaan lahayd dhanka siyaasadda, hadday ahaan lahayd dhanka ciyaaraha, hadday ahaan lahayd dhanka dhaqanka, iyo hadday ahaan lahayd dhanka dagaalka iyo dhan walbaba oo laba dawladood ay isku qabsadaan weligeed Kenya Soomaaliya kama guuleysanin. maanta waxaa maraynaa heer Ethiopia naga guuleysato. maanta waxaa maraynaa heer Soomaaliya ee Kenya naga guuleysato. heer Afrikaankii kale oo Soomaaliya ka guuleysto ayaa maraynaa. waxana dhigay ee sababay waa maxay? waa qabyaalada aan maalin walbaba meediyaha aan ugu samaysanayno hebelow waaye aan leenahay. al-cunsuriya, qabaliya, jaahiliya ummadii googoysay, baabi'isay, diintoodiina ka fogaysay, maalin walbana ku mashquulisay qabiil iyo qabyaalad iyo wax aanan u soconaynin. Soomaaliya haddii ay ku laaban weyso dadkan maalin walbaba ka shaqeynaya arrimaha qabyaalada iyo arrimaha hebel annaga laandheeraha Mareykanka xil ka qabanay iyo annaga laandheeraha Kenya naga guuleysatay ku haya hadday ka tagi waayaan ama iska day waayaan u soo laaban waayaan kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada rasuulka. war kitaabka Allah maxaa loo soo dejiyay? Allah kitaabkan wuxuu u soo dejiyay inuu wax nagu faro waxna naga reebo. haddii annaga wuxuu Allah na faray aan fartoomi weyno, wuxuu naga reebana aan ka reebtoomi weyno, wuxuu nabiga noola yimid calayhi salaatu wasalaamna aan samayn weyno, wuxuu naga diiday oo tanhiya ama maxuu ahay nihaaya inaan ama diidma aan diidi weyno. taasi waxay u dhigan tahay inaan annaguba ahayn dad u soo jeeda diintooda, dad u soo jeeda qoladooda.
maalin walbaba Soomaaliya ama qarni walbaba Soomaaliya qolo diimeed ayaa ka hirgasho oo ka shaqeysa taasina waxa ay tahay in Soomaaliya boqolkiiba boqol lagu tilmaamo inay yihiin dad muslimiin ah hasa ahaatee diintoodii macaanigooda iyo macnaha iyo dhadhanka iyo ladatu diin aanan haysanin ama ladatu diin aynan ka go'nayn haddii diintanada aan anagu difaacanayno miyaa qoloyooyin iyo maxuu ahaay intaasoo axsaab diineed Soomaaliya ay ka hirgeli lahayd burburkan iyo dhibaatadana nabidi lahayd asaageena maanta wuxuu leeyahay aqoonsiyo caalami ah oo dhaqaale ku filan waa oo haysta Afrika gaajo ayay u dhimanaysaa marka la leeyahay United Nation iyo UNHCR ka iyo maxuu ahaay WHO iyo wax walbaba oo caalamka ku saabsan oo hay'adaha deeqaha bixiya ah waxa ay yimaadaan Soomaaliya oo ay sawirro ka qaataan iyo muuqaalo halka dawladaha kale Kenya ay iyadu isku filan tahay qaadkeeda iyo balaayadeeda iyo muqaadaraadkeeda waxa ay gado walaalayaal dawladnimada Soomaaliyeed waxa ay soo laabanaysaa markii annaga aan ku soo laabano islaamnimada qarannimada diinnimada walaalnimada isjaceelka aan ka fogaano qabyaaladana aan ka fogaano markii aan walaalnimada ku soo laabano isjecelaysiga aan ku soo laabano qarannimada ku soo laabano islaamnimada ku soo laabano wax walba oo aan uga baahannahay Allah subhanahu wa ta'ala waa ay noo suura galayaan wadankeenana cadow kasta ee ku soo duuliyay ilaah baa fashilinaya ilaah baa dhicisaynaya dhibaato walba oo diimeed iyo balaayo walba ay wadanka la maagaan gaal ha ahaado ama qolayaal kale ha ahaadane waa ay fashilmayaan walaalayaal aan ka digtoonaano aan ka fogaano waxyaabaha fawaaxishta ee dalkanaga iyo diintanada burburinaya aan ka fogaano jiilka soo socda maxaan dhihi doonaa waxaan dhihi doonaa jiilka soo socda madaxweynaha waa qabiilkaas oo qabiil ayuu ku soo koraa ra'iisul wasaarahana waa qabiil oo qabiil ayuu ku soo koraa oo wasiir hebelna waa qabiil oo qabiil ayuu ku soo koraa golaha baarlamaankana waa qabyaaliyistayaal oo qabiil ayay ku soo koraan golayaasha deegaankana waa qabaliya cunsuriya xamiya maxaan u sheegi doonaa jiilka soo socda annaga naga dambeeya Soomaaliya haddii horumar rabto horumarkeeda diintaas ayuu ku jiraa iyo isjaceyl iyo cadaalad in loo soo wada laabto la wada sinaado kan Soomaaliga ee madow ee Soomaaliya ku dhashay iyo kan kale ee madow ee Soomaaliya ku dhashay waa ay siman yihiin wax kala fogeyn kara ama kala dheereyn karana ma jirto waxay ka siman yihiin diinta waxay ka siman yihiin maqaarka waxay ka siman yihiin jinsiyadda waxay ka siman yihiin afka iyo dalka ay ka siman yihiin sidee ku oran kartaa walaalka Soomaaliyeed oo muwaadin ah in aad tiraahdid adiga aniga wadanka kaale adiga anaa ka laan dheereysan adiga aniga ka diyo boqolow adiga waxa tahay 25 sidee baad ku oran kartaa diintanadii ma banaynina bal maxaad u xeerinaysaa oo xeerkee ugu laabatay aayadaha Quraanka Kariimka hasa anagu nooma sheegin intaas waatee aayada ku sheegayso adiga inaad laandheero tahay anigana aan laandheero ahayn waatee aayada ku sheegayso walaalkaaga markii uu farxo in aad farxadiisa xaasadnimo ugu bedeshid ee aad cadaalad darro ugu sii darto dulmiso aayada ku farayso waatee ee aniguna aan ifareynin